maanta oo kale waxay maalin weyn u tahay dhammaan haweenka dunida 8 Maarso waxay ku asteysan tahay maalinta haweenka adduunka xarumaha qaar oo ka mid ah magaalada Muqdisho waxaa laga xusayay maalinta haweenka adduunka waxaana mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid ah dumarkii ka soo qayb galay xaflad lagu xusayay 8 Maarso oo lagu qabtay magaalada Muqdisho aad u mahadsantiin magacaygu waa Shaymaan Salaal Maxamed maanta waxa ka soo qayb galnay dabaaldega maalinta عكس قريب قلنا معلنت دبالدقة هواك Soomaaliyeed aadaan ugu faraxsanahay in ka noqono dhalinyarada gabdhaha dhalinyarada ah oo ka soo qayb galay xafladan ما صرت مقعي وأنا أحمد يوسف ما شاء الله كفرح سنة وأنا هم بلياني دمان هواينك Soomaaliya ميول بيك جوان دنيا حان لي هم بليو 8 مارسو وأنا صهر مرينا ما دام إسنا هن مان 8 مارسو بس حان لي هم بليو وأنا كفرح سنة هاي مناسبة نوعان وكلنا كقرب قلو مرور بيتنا وحان ديارنا هاي إن الموضوع قرحت بدن إن هواين كانوا قرب يستاجنوا أما أنا فرحت أقول قادنا ما دام أنا جنا هواين أنا هاي بس أنا دلني رد عير وحنا ديارنا مرور با هيل يهوبا إن أنا قرب يستاجنوا وحياله بدن فرحتوا على قبسنا الدمرك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعيق وبصر محمد عثمان ما درين كي مسوي كوبي كراني حتى مش هي كروس حال مرحلة ده هذا يكسو هاي هذا أفرح سنة تذكر لي تمانتو حنوهم بلينا هواينك Soomaaliyeed 8 مارس هواينك Soomaaliyeed waxa kula dardaarmi lahaa inay garab taagnaadaan ilmahoodan ay si wanaagsan u barbaariyaan si ay sheeg caruurta markii oo wax mashquuliyo la waayo markaas ka bacdi ay inay wax ku ciyaaraan bilaabaan hadii si oo nidaam loo tarbiyeeyo oo wax walba loo sameeyo then waxa isleeyahay wax walba wanaagsanaan lahayn Maxamed Cabdirasaaq Aadan Bulsho TV magaalada Muqdisho يا كنا جادا تو حياة ودفيسة